ku guddiga maamulka doorashooyinka koonfur galbeed baydhabo ku guddiga maamulka doorashooyinka Somaliland Muqdisho ku guddiga maamulka doorashooyinka galmudug dhuusamareeb og madaxweynayaasha maamul goboleedyada fadhiyadooda og ra'iisul wasaaraha Muqdisho ujeedo celin kuraas aan marin habraaca doorashada guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo tix raacaya duruufaha iyo cabashooyinka ka yimi doorashada kadib markii guddigu baaritaan ku sameeyay doorashada golaha shacabka ee lagu qabtay Muqdisho galmudug iyo koonfur galbeed ayna baaritaanadii ka soo baxeen kuraas aan waafaqsanayn habraacyada doorashada loo dejiyay guddigu waxa uu go'aamiyay qodobadan kow in kursiga sumadiisu ay tahay hob 154 habkii loo maray doorashadiisu aysan waafaqsanayn habraacyadii doorashada iyadoo murashax ka mid ah kuwii ku tartamay uusan buuxin shuruudii murashaxnimada qodobkiisii saddexaad ee heshiiskii 1 Oktoobar 2020 sidaa darteed natiijada kursigaas oo ka dhacday baydhabo 29 Noofembar 2021 waa waxba kama jiraan doorashadiisana dib ayaa loogu noqonayaa laba kursiga uu tirsigiisu yahay hob 103 iyadoo la tix raacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumadiisu tahay tixraac guddiga doorashooyinka heer federaal eber 56/22 uu soona baxday 27 Noofembar 2021 go'aankaas oo lagu hakiyay in la qabto doorashadiisa sidaa darteed marka habraaca la dhamaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa waxa jira kuraas ay murano ka soo noqdeen oo ka soo baxay galmudug oo hadda ay gacanta ku hayaan guddiga xalinta khilaafaadka iyaga ayaanu go'aankooda sugaynaa afar waxa kale oo cadaynaynaa in habraaca ay soo dejiyeen mas'uuliyiin ka tirsan golaha baarlamaanka oo ka soo jeeda Somaliland aan lagu dhaqmi karin guddiga doorashada Somaliland wuxuu ku shaqeynayaa habraaca golaha wadatashiga qaranka waxa kaliya oo Somaliland kaga duwan tahay habraacyada doorashada dalka inay yihiin erga wadaag haddaba waxaanu la socodsiinaynaa cid kasta oo danaynaysa doorashada inaan guddigu aqbali doonin doorasho kasta oo baalmarsan hanaanka habraaca doorashada ee lagu heshiiyey guddiyada doorashooyinka heer federaal maamul goboleed iyo xalinta khilaafaadku waa guddiyo madax bannaan hawshoodana waxay u gudanayaan si ka madax bannaan faragelin siyaasadeed